جيل قد سلطان وهبة حلبان محمود عبد القادر حاج الجاقو بسم الله الرحمن الرحيم. قدومك لبدا أقل حلبانada labada aqal gudiyada duwaysta dastuurka saxaafadda dhamaan howlwadeennada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudane gudoomiye waxaa sharaf weyn maanta inaan halkan soo istaago iyadoo laga hadlayo dastuurkan kumeel gaarka sida looga bixi lahaa. marka waxaan qabaa in aad la isaga fiiriyo qodobada habraaca ee guddiga duwaysta ay soo qoreen. waxaan soo jeedinaa guddiga inuu hoos ka xariiqdo xildhibaan walba doodiisa biritooda ansixinta markii loo soo laabto in ay ka muuqato meeshaas doodihii laga galay habraacan. waa mahadsantihiin. qodobada inta badan ee aan qortayne waa laga hadlay, laakiin waan xoojinayaa. tusaale qodobka koowaad ee habraaca number 3 guddiga dib-u-eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka kadib markuu soo gabagabeeyo howlgallada ku xusan farqada koowaad ee qodobkan wuxuu hindisa sharciyeedka soo jeedimaha wax ka beddelka dastuurka iyo warbixinada la socda u gudbinaya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si ay uga gutaan waajibaadkooda waafaqsan qodobka 133 number 10 ee dastuurka. xogaha khilaafa ka jira meeshaas shalayna waa laga hadlay. dastuurka siduu u qoran yahayna waa sidaan. haddii marka la sameeyo la tashiyo ku xusan farqada number 8 guddiga la socodka go'aamiso in ay gudbiso wax ka beddelka dastuurka ee la soo jeediyey ama sharci qabyo ah si loo ansixiyo. waxa ay u gudbin doontaa wax ka beddelka dastuurka ee la soo jeediyey gudoomiyaha aqalka shacabka gudoomiyaha aqalka shacabka iyadoo warbixinada la socda si hore loogu gudbo sida hore loogu socdo si waafaqsan dastuurka. marka shalayna waa laga hadlay gudoomiye arrintaasna waxaan u xoojinayay inaad hoos ka xariiqato meesha laga saaro si loo saxo. waa mahadsan tahay. qodobka kaleeto aan rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay qodobka saddexaad isla number 3. qodobka saddexaad number 3 waxaa laga hadlay guddiga dib-u-eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka iyagoo kaashanaya guddiga la socodka golaha baarlamaanka waxay hay-adaha hoos ku xusan u gudbinayaan qoraal iyagoo ka codsanaya in ay aragtidooda qoraal ugu soo gudbiyaan guddiga muddo 45 cisho gudahood. hay-adaha iyo waxaa soo qabteen madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha maxkamadda sare, gudoomiyaha maxkamadda dastuurka, xukuumadda maamul goboleedyada, golayaasha wakiilada maamul goboleedyada. waxaa meesha ka maqan gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa meesha ka maqan. waxaa kaloo sii dheer xildhibaanaha ka hadlay, laakiin waxaa sii dheer maamul goboleedyada waxay soo dirsadeen xubno ka socdo
guddiyada maamulka gobolka banaadirna wax guddiya oo ka socda meeshaan ma jirto waxaa kaloo sidaan meeshaas guddiyada ka socdo maamul goboleedyada haddana si fayra looma soo samaynayo maamul goboleed kasto sidoo asiga rabo oo u soo xushay guddiyadaas marka iyagana waxay u baahan yihiin in dib loogu laabto arrintaas si hoose looga xariiqo gudoomiye adoo maasan isla qodobka saddexaad aragtida hay-adaha ku xusan farqada saddexaad qodobka aragtida ku xusan farqada saddexaad qodobka lagu dhafay fiirooyinka guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka waxaa loo xil saarayaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka si ay u soo gabagabeeyaan una soo siiqeeyaan soo jeedimahaas si waafaqsan qodobka 133 ee dastuurka ku-meelgaarka ah muddo 30 maalmooda meel ay ugu qoran tahayna ma jirto dastuurka qodobka 133 inay ku soo gudbiyaan muddo 30 maalmood meel ay ugu qoran tahay ma jirto sidaas darteed marka qodobadaas iyagana waxaan soo jeedinaa in laga tiro meesha muddo 30 maalmood ay ku soo gudbinayaan midda saddexaad waxaan rabaa markaan uga haro intaas habraaca ee aad soo diyaariseen guddoomiye waxaan rabaa shalay waxaa laga hadlay in heshiis siyaasadeed laga gaaray annagu markaan ka hadlayo meeshaan heshiiskaas siyaasadeed waxaa ka maqan beellan oo 31 xildhibaan ku leh golahan shacabka aqalka sarna ku leh hal xubin oo aqalka sare ayaa ka maqan heshiiska madalaadna kuma haystaan meeshii lagu heshiinayana goobjoog cid u ahayd ma jirin cid ku matalaysa ma jirin saxiixna kuma lahayn madasha waxa ka soo baxay heshiiska ka soo baxayna laguma xusin xataa hal meel oo loogu xusayna ma jirin marka ma aqaan sida isku qabanayso dalkan dastuurkiisa in laga shaqeeyo iyo in ay meeshaan ka maqnaato beel dhan oo aan matalaad ku haysanin heshiiskaas meel oo lagu soo xusanay aysan jirin cid ku matalaysana aysan jirin saxiixna aysan ku lahayn marka guddoomiye waa maasan tahay arrintaasna way taagan tahay way jirtaa marka waxaan soo dhaweynayaa in guddoomiyaha dib u eegista dastuurka iyo xubnihiisa inay maxay ahayto barnaamijkan ay soo gudbiyaan aad ayaan u soo dhaweynaa balse laakiin muhiimadda ayaa ah in maxay ahayto laga fiiriyo dastuurka marka laga shaqeynayo dastuurka waa in loo dhan yahay ummadda soomaaliyeedna ay u dhan tahay marka ummad dhan oo baarlamaankan xubno ku leh ayaa ka maqan guddoomiye marka arrintaas dib u eegis ay u baahan tahay waxaana soo jeedinaa in dib loo eego waa mahadsantihiin xildhibaan cali hoosh